wadamada gartay gobanimada yada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooy gaygii kaste guushayada jecel abal gunahban gaarugu haya abal gunahban abal gunahban gaarugu haya wadamada gartay gobanimada yada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooy gaygii kaste guushayada jecel abal gunahban gaarugu haya abal gunahban abal gunahban gaarugu haya mid ku gaasiro guushaada neceb kunta hooseeyo gudkan kala socda garabiyo xigaal gacalaygu tago libax kikaniyo kii galaday ogaa kii galaday ogaaye mid ku gaasiro guushaada neceb kunta hooseeyo gudkan kala socda garabiyo xigaal gacalaygu tago libax kikaniyo kii galaday ogaa kii galaday ogaaye kala gaaray dadkani ka gargaarayo ninkii goynayo cadowno gabada gubay xaasidkii koohiya ilmada waxaad igaga goyn u galbaday kaniye cawri igaga guri cawri igaga guriye gayiyo hawada gaarulihiin nimcada gooyahaga calankoodkaaga sudan kalbiskuma helina geeri buu ku yimi imisa u go'ay u godgalay halyey imisa u go'ay u godgalay halyey gayiyo hawada gaarulihiin nimcada gooyahaga calankoodkaaga sudan kalbiskuma helina geeri buu ku yimi imisa u go'ay u godgalay halyey imisa u go'ay u godgalay halyey waqtigeesigiyo gashi baanu helay hoyo goblantaygu gabankeedii yahay garidhaaban laba ku kurseegtayo min xiskuuray buu gacal wehelu yahay waqtigeesigiyo gashi baanu helay hoyo goblantaygu gabankeedii yahay garidhaaban laba ku kurseegtayo min xiskuuray buu gacal wehelu yahay وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أكون مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد. Et à la violence. Nous opposerons notre tolérance, notre foi juste, notre identité profonde.
كيهو هوذا كاروليهين على كويهاga calankooda sudan kalbiskuma eli lageeli buu ku yimi imisa go'ay sharaf bay noo tahay inaanu ka qayb galno xaflad ballaaran oo maamuus iyo qadarin ku mudan dhammaan geeska Afrika gaar ahaan ummadda reer Djibouti waxaan ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan ka marakacaynaa in maanta si mug iyo miisaan leh jamhuuriyadda Somaliland loogu soo dhaweeyay iyo maamuuskeediina lagu buuxiyay goobta iyagoo ay madaxweynayaashu ka qayb galay ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo lagu caleema saarayay goobta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Guinea Conakry madaxweyne ku-xigeenka dalka South Sudan Prime Ministerka Rwanda Prime Ministerka Soomaaliya iyo Prime Ministerka Ethiopia iyo ku-xigeenka Prime Ministerka Uganda waxaa ka soo qayb galay 8 wasiir arrimo dibadeed oo ka kala socda daafaha adduunka waxaa ka soo qayb galay African Chairka waxaa ka soo qayb galay IGAD waxaa ka soo qayb galay dhammaan organizationka ay ka mid yihiin EU-da iyo ka Africa iyo Islamic organizationska dhammaantood waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay milgaha iyo karaamada Somaliland lagu soo dhaweeyay iyo goobta iyo sharafta ay ku buuxisay milgaheedii waxaan qiraynaa haddaanu nahay waftigii ka socday jamhuuriyadda Somaliland in dadka reer Djibouti iyo madaxdooduba ay si milga iyo maamuus la noogu soo dhaweeyeen dalkooda nana siiyeen protocolkii aanu ka mudnayn ee ummadda reer Somaliland ka mudan tahay waxaanu leenahay ummadda reer Somaliland iyo ummadda Djibouti waa walaalo aan waxba kala lahayn meel kasta Djiboutina waa ku nool yihiin Hargeysa iyo lamidna way ku nool yihiin waa walaalo ninba marka uu doono dhanka uu rabo ka ganacsado kuna noolaado aad iyo aad baan leenahay Djibouti waxaanu u rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo baraare waxaanu u rajaynaynaa hogaamiyahoodii cuslaa oo aan isleeyahay waqti adag buu ka soo saaray ayaa maanta dib loogu celiyay runtii caleema saarkii waxaanuna isleenahay wuu sii hogaamin doonaa waxaanuna garanaynaa inuu yahay hayin hogaamin kara ummadda reer Djibouti iyo guud ahaanba East Africa aad iyo aad baad u mahadsantihiin